waxaan rabaa maanta inaan laba kelmadood ka idhaaho hadal cay iyo canjarafayna oo uu warbaahinta mariyey wasiirka warfaafinta ee Somaliland maamulka Somaliland ku magacaaban Salmaan Yuusuf Cali Koore oo ahaa cay iyo canjarafayn iyo aflagaado u geysanayay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Said Cabdullaahi Deni waxaan rabaa marka hore inaan u sheego Salmaan iyo maamulka uu ka tirsan yahay in dhulka ay haystaan ee madaxweynuhu ka hadlay uu yahay dhul Puntland warka uu madaxweynuhu sheegay uu yahay mid dhaba loona baahan yahay inay sida ugu dhaqsaha badan u baneeyaan deegaanadaas haddii kale uu dhig ku dadan doono hadalka kale mid kale aan rabo inaan Salmaan oo aan u sheego waxa weeye waxaan saaka ku arkay baraha bulshada ceelal biyoodyo laga qodayo deegaanada Sool iyo Cayn oo wasiirkooda ninka ugu magacaaban biyuhu uu hor istaagay uu leeyahay sharci maaha in laga qodo taasaa ugu filan Salmaan waxa meesha ka jira iyo gumaysiga lagu hayo ummadaas iyo horumarka laga hortaagan yahay waxaanu ognahay deeqaha ugu badan ee beesha caalamku bixisaa inay soo maraan maamulkaas ayna cunaqabatayaan ummadaas waxay u qabtaan aanay jirin waxaad ka garan kartaa ceelasha laga qodayo oo uu ku xusnaa xidhxidh ee laga qodayo deegaanka xidhxidh oo leeyahay sharci maaha lamana qodi karo isagoo amraya wiilasha u jooga gobolka Sool ugu magacaaban maleeshiyadaas ciidanka uu madaxweynuhu u xidhayay tababarka markaan ku soo noqdo wuxuu ahaa ciidan Puntland tababaratay ay leedahay iskagana filan Puntland inay iska saarto maleeshiyadaas waana la saari doonaa sida ugu saabada insha Allah marka sabab waxa leeyahay adeer ku filow deegaankaaga baa kugu filan waxa ka socda bas maamulka ka tirsan uu ku hayo maleeshiyada ugu badnayd ee beelaha waqooyi galbeed ama beelaha dir waqooyi waxay joogaan gobolkaaga ay joogaan meel kale ay joogaan ma jirto aduna waxaasaad ku faraxsantahay ku qanacsan tahay intaas iska propaganda duwacaydaas uma kamid tahay 200 baa isaga yaa u sheegay 200 tahay kumanaan baa loo soo xiray tababar kumanaan kalena waa joogaan difaac waxay ku jiraan difaac iyo dhulkii loogu tagay bay joogaan Puntland waxay la dagaalantaa daacish bay la dagaalantaa shabaab bay la dagaalantaa jiida hore ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn bay difaac kaga jirtaa marka ma aha waxa la haysaano waa Sool dhulka ay haystaan dhulkoodii oo dhan wixii joogay baleeshiga soo kacayeen halkay keeneen marka taasna uu de waqtigu ba ka jawaabi doona Puntland iskaga filan inay iskaga saarto hadii laakiin xaqiiqi dhibta jira waxa weeye Puntland waxa wada station gobol iyo degmo madaxweynuhu intaas uu ka hadlo Somaliland reer baa leh SLM qabsatay dhulka ba soo gashay dawladda Soomaaliya burburtay reer bay ahaayeen burca la isugu tagay qoryaha dadka lagu qabtay saasa maamulka Soomaaliya horta ku dhismay maamul Soomaaliya la yiraahdo jiro oo isla aqoonsay ma jirto wada arkaysa hadda wuxuu yiri cadaaba geera ay kartay farmaajo u kale umada inay Soomaaliland saa ay u magaciiso oo firaya dadkii iyo dalkii ay lahaayeen xaqid waa saawi dawladda federaalka baa waxa ka shaqeysa tan uu ka hadlay dawladda Puntland waa dawlad ka tirsan dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ah iyadana aaba iyo hooyaba u ahayd iyada ku rageedu ku dhamaaday iyada dhaqaaleedu ku dhamaaday haddana dawladda federaalka dawlad is qabanaya waxa la isku qabanaya yaani waxyaabaha dawladda federaalku rabto inay dekrigeed marorsato suurtagal ma marka waxa weeyo anaga federaalka nagu xoqile Puntland waxay ka tirsantahay dawladda federaalka waa dawlad ka tirsan xubnaha dawladda federaalka iyadana hormuud ah stateska jira runtii marka canjarafayntiisu waxba cidna yeelmayso isagoo ma isticmaalaya